waxaanu muuqaalkeenu ku saabsanyay Mr Beast ayaa qiimeyn doona diyaarado oo qaarkood gaarayaan $500,000 qaarna $25,000 qaarkoodna ay gaarayaan $10,000 oo waxa loo qiimeyn doonaa qaab dhismeedkooda iyo cuntadooda iyo sida qolalkoodu kala nidaamsan yihiin waxaana laga bilaabayaa diyaarad $1 diyaaradana qiimaheedu waa $1 waxaana leedahay hal baylood oo kaliya hal qofna ayaana raacaya oo waxa raacaya Mr Beast oo kaliya waxaana la bilaabay in diyaaradda lagu shubo shidaal oo diyaaradda marka kacayso qof ayaa wareejinaya maraawaxadaha oo waxay bilaabayeen inay dhulka ka kacaan oo sidaas ayay diyaaradda ku duulinayaan oo hawada ayaa ay galaysaa saaxiibadiina halkan ayaa ay ku yaaban yihiin Mr Beast iyana bayloodkuna ka maqasna oo hawada ayaa ay ku sheekaysanayaan oo cabaar ayaanay soo wareegayaan hawada saaxiibadiina dhulka ayaa ay ku caajiseen diyaaradana waa la soo dejinayaa oo halkaas ayaanay ku dhammaanaysaa tijaabintii diyaaradda koowaad ee qiimaheedu ahaa $1 waxaana loo gudbayaa diyaaradda ku xigta oo ah $1,000 oo tigidhka lagu raacaya $1,000 ah oo waxay kiraysteen dhowr kursi oo keliya qof kastana wuxuu fadhiisanayaa kursiga ku habboon oo cabaar marka ay joogaan waxaa loo keenayaa cashadii oo diyaaradda ma laha meel la seexdo qof kastana waxa uu seexanayaa kursigiisa halkan ayaana isku foodeynayaan diyaaradana maaha mid iyagu keligooda kiraysteen waana diyaarad bulsho oo dadku ay wada raacayaan diyaaradana waa laga gudbayaa oo waxaa loo gudbayaa mid $10,000 ah qiimaha tigidhkeeduna waa $10,000 waanay ka raaxa badantay tii hore waxaanay leedahay meelo lagula gashto iyo meelo kalo faa'iido leh iyo xataa tiifiyo tii horena waanay ka faa'iido badan tahay markana waxaa la qiimeyn doonaa qaybta musqusha oo musqushan aad ayaanay u casritay waana nadaafad badan tahay oo xaggana waxaad ka arkaysaa diyaaradda fiyuugeedii diyaaradana aad ayaa u fiicantay ani ahaantay waxaana loo keenayaa cuntadana tii hore way ka qaalisan tahay meeshanna waxaa ku yaala xataa baar oo lagu cabo cabitaanada waxaana loo gudbayaa diyaaradda ku xigta oo ah $25,000 oo qiimaha lagu raacay tigidhkeedu waa $25,000 markana waxay soo fuulayaan diyaaradii oo gudaha ayaa u soo gelayaan ogaadana diyaarad kastana diyaaradda ka qaalisanta waa ay ka qurux badan tahay oo diyaaradan waa ay kala xirxidhan tahay oo qolal yaryar ayaa jira waxaanay leedahay 3 TV oo dhan oo space waasac ay qofka siinaysaa marka diyaaradda cuntada dalbanaysid jeliska ayaad garaacaysaa cuntadana si degdeg ah ayaa lagu keenayaa oo diyaaradihii hore ma lahayn wax jelis ah laakiin diyaaradan way ka duwantay diyaaradihii hore oo waxa ay leedahay xataa meel fadhiya oo lagu nasan karo oo waxa ay leedahay qol la seexan karo oo ay yaalaan sariiro oo meeshii kaliya waxa yaala 2 sariir oo yaryar oo waxa seexan kara 2 qof oo kaliya meeshanna waxa wada seexanaya Chris iyo Mr Beast subaxii marka uu waagu bariyo waxa uu imanay qaar kamid ah shaqaalaha diyaaradda oo waa ay kicinayaan sidaas ayaanay dhammaantood ku kacayaan oo waxa loo gudbayaa diyaaradda ku xigta qiimaheeduna waa $100,000 oo tigidhka lagu raacayo waa $100,000 diyaaradana keligood ayaa kiraystay oo waa loo sii diyaariyey sidaas ayaanay diyaaradda ku fuulayaan sidaad wada aragtaanba diyaaradan aad ayaa u kala nidaamsan tahay oo meesha cuntadu waa gaar oo meesha fadhigu waa gaar oo meel kastaba sideeda ayaa loo diyaariyey mis odhan karna diyaaradda waa u qalantaa qiimaheeda Mr Beast halkan ayaa ay ku nasanayaan diyaaradan waxay leedahay qol jiif oo caadiya sida guryaheena oo kale Carol ayaana ku baashaalaya qolkana waa sida musqusha oo kale oo waxa lagu talagalay in lagu meedho oo halkan ayaa ay soo fadhiisanayaan waana wada sheekaysanayaan diyaaraduna waa ay kacaysaa dhammaantoodna halkan ayaa ay soo wada fadhiisanayaan xataa kameramaankii oo diyaaradan waaba faniba sababtoo ah bayloodka ayaa diyaaradda leexleexinaya oo intaas ayaa ay dhammaantood ku baashaalayaan oo waa ay warwareegayaan Carol ayaana halkan ku boodboodaya Charlerna warba ma hayo waa uu iska hurdaa mar dambe ayaa uu soo baraarugaya oo diyaaradan waxay leedahay kursiyaal khaas ah oo ku yaala qolka bathroomka waxaana loo keenayaa cashadii oo cashadan weli hore umaanay arag waana cashadii ugu horeysay noocan ay arkaan waxaana loo keenayaa cuntooyin badan diyaaraduna hawada ayaa ay kula jirtaa oo halkan ayaana cuntadooda ku dhamaysanayaan Mr Beastna dhalada ayaa uu iska daawanayaa Chrisna hurda ayaa uu iska tegayaa oo sariirtiisa ayaa u qabanaya waxaana ku xiga buufintan ama baarashuudkan oo qiimaheedu yahay $300,000 buufintanna hal qof ayaa sabrays loogu sameeyey oo dhammaantoodna indhaha ayaa laga soo wada xidhay hal mar ayaana lagu odhanayaa iska wada fura sabrayskanna waxaa loo sameeyey Carol sababtoo ah hooyadii aad ayaa uu jecel yahay isaguna marka uu arko aad ayaa uu farxayaa waxaana la yaaban yihiin buufintan aadka weyn oo waa ay farafareynayaan ha ugu darnaado Carolkii sabrayska loo sameynayay halkanna waxaad ugu wacdaa saaxiibkaad ka odhan lahay sabrayskan oo kale ii samee Mr Beast ayaana ugu horkaraya waxaana ku xigay saaxiibkii Carol oo waxaad meeshan wada fuulaya Carol iyo Mr Beast oo keliya iyo bayloodka
garoonka labadiisa saaxiibe kalena halkaas ayaa kaga tegayaa Chris iyo Chandler waanu macasalaamaynayaa waxaana bilaabmaysa inay buufintu kacdo sidaas ayaanay hawada ku galaysaa waxaanay soo dulmarayaan garoonkan uu ka socday tartanka gawaadhida oo waxaa joogay taageerayaal aad u badan Mr Beast-na waxa uu odhanayaa dhinaca garoonkan ugu leexi oo taageerayaashiisu markay arkaan buufintan aadaya ay u farxayaan halkaasna waxa uu jooga Chris iyo Chandler oo garoonka waxa ka socda ay u sheegayaan taageerayaashiisu markay arkaan buufintana waxay ku qaylinayaan waanu jecelnay Carol hooyadii Carolna dhinacan ayaa uu ka dhageysanayaa garoonka oo dhanna waxa laga hadalhayaa waanu jecelnay Carol hooyadii ninkana farxadiisa imis ayaad ku qiimeyn lahayd tanna waa diyaaradii ugu dambeysay oo qiimeedu yahay $500,000 waana ka qaalisantay diyaaradihii hore waxa soo dhaweynaya shaqaale aad u fiican waana gabartan oo waji fiican ayaa ay ku soo dhaweynaysaa fadhigeeduna aad ayaa uu qurux badan yahay qolalkeeduna hadal maba karayo qol kastana qol kale ayaa uu kasii qurux badan yahay aan karaynana diyaaradan way u qalantaa $500,000 in lagu raaco adiyahaantana fikirkaaga ka dhiibo sariiraheeduna sidaas ayaa ay u yaalaan oo qaybta marka aad faraha dhaqanaysid amba wejiga aad meedhanaysid waxay ka samaysantay dahab oo diyaaradan waxa ugu badan ee yaala waa fadhiyo amba meelo lagu fadhiisto waxaan u yeedhanayaa qaar ka mid ah faniskiisa oo diyaaradda ayaa ay waqti ku wada qaadanayaan mid kastoo iyaga ka midana waxa uu ka odhanayaa diyaaradda ila qiimee Mr Beast-na waxa uu yeedhanayaa gabadhan shaqaalaha waxaanu ka odhanayaa ila qiimee shukulaatadan iyada doqonnimadeena waa iska tuuraysaa Mr Beast-na lama yaabayo oo shukulaatada waa uu sharxayaa waxa ay tahay oo dhammaantoodba halkan ayaa ay ku baashaalayaan Nolan ayaa sida uu boodboodayay ku dhufanaya saqafka sare diyaaradda madaxa waxaana la gaarayaa waqtigii qadada oo dhammaantoodba halkaas ayaa ay ku wada qadeynayaan Nolan iyo qoftanna halkan ayaa sidii ay lamaanayeen afka la isku gelgelinayaa qadadoodiina sidaas ayaa ay kusoo dhammaanaysaa isku dayna inaad subscribe-ta inoo saartid si aniga iyo tiimkayga aad noo raacdid